Nagada qof ii soo dhawaan kara ma leh oo igu soo dhiiran kara inuu ii soo dhawaado sababtoo ah waxaan ahay fariyanka ugu wanaagsan adduunka. xilligii lagu jiray guga ee 1985 nin dhalinyaro ah oo aad u cajiib badan ayaa markii ugu horeysay tartan feer ka qayb galay. xilligaas wixii ka dambeeyay qofna ma ogeyn inuu noqon doono mid ka mid ah dadka ugu caansan ciyaarta feerka taariikhna adduunka ka dhigi doona. Mike Tyson goobtii feerka ayuu waxyaabo cajiib badan ka dhigay kadib markuu mid dhulka u dhigay feeryahanadii la tartamayay. wadadiisa ayuu ka leexiyay feeryahanadii la tartamayay isagoo isticmaalaya xawaaro sare oo dhalinyaranimo ku dheehan tahay iyo dulqaadasho awood badan, taas oo keentay inuu feerkiisu noqdo mid la yaab badan. weligay kama shakin inaan ahay feeryahanka ugu fiican adduunka, inkastoo in badan oo idinka mid ah aysan rabin inay maqlaan xaqiiqa aniga ayaa ah kan ugu fiican. ulama jeeda miya sidaas, waayo aniga xataa mararka qaar ma aamino naftayda, laakiin waa run, aniga ayaa ugu fiican. waa Mike Tyson oo la tartamay Ricardo Spain. waa feerkii afraad ee Mike Tyson uu tartamo noloshiisa, wuxuuna dhacay 20 Juun 1985 kaasoo ka dhacay garoonka Resorts International ee magaalada Atlanta ee gobolka New Jersey. kadib 12 feer oo isku xigxiga oo aan laga jawaabin oo Mike Tyson si darandoori ah iskaga daba riday Ricardo Spain, wuxuu isku dayay inuu ka jawaabo oo uu isdifaaco, balse waxaa feer culus dhinaca bidix kala haleelay Mike Tyson. feerkaas uu la dawaqsanaa ilaa uu dhulka soo salaamay isagoo xariga cuskanaya. Ricardo wuxuu ku soo kacay tiradii 8aad refereega, isla markii uu refereega amarka ku bixiyay in la wado ciyaarta. labadii feeryahanba waxay isla waayeen feerar la isweydaarsaday, laakiin Mike Tyson ayaa aad u dhaqsi badnaa oo si degdeg ah ayuu la haleelay feer gacanta bidixda danka Ricardo jilbihiisa ayaa qalloocday, kuwaas oo ka badbaadiyay 2 feer oo kale oo kusoo wajahnaa madaxiisa, laakiin refereega ayaa joojiyay ciyaarta kadib markuu Mike guuleystay. Tyson oo la tartamaya markaan Michael Johnson. waa dagaalkii 8aad ee Mike Tyson kaasoo dhacay September 5, 1985. dagaalka xirfadle sida Mike Tyson oo kale u dagaalamo waqti badan ma qaato. dagaalkan wuxuu ku dhammaaday 39 sekan ama ilbiriqsi kadib feerarkii ugu horeeyay ee la isdhaafsaday. feer awood badan oo gacanta bidixa xawaare sarena ku socda ayaa la qabadsiiyay Johnson, isla markiiba dhulka ayuu ku dhacay. haatan refereega wuu u tiriyay Johnson si uu u sara kaco, kadibna amar ayuu bixiyay si ciyaarta loo sii wado. dagaalka isla markiiba waa bilowday, laakiin markaan Tyson feer gacanta midig ah oo awood badan ayuu u daba mariyay. markaan Mike Tyson ilkaha hore ee Johnson ayuu gacanta ku wataa oo feer ayuu uga soo siibay. haddaba markaana Mike Tyson wuxuu la tartamayaa Roberto Cole. waa dagaalkiisii 10aad oo dhacay 25 Oktoobar 1985, isla markaana ka dhacay hotelka Atlantis ee ku yaala magaalada Atlanta ee gobolka New Jersey. markaan waxaa la gaaray ciyaartii 8aad ee garoonka ka dhacda, waxaana ku fiirtamaya Mike Tyson iyo Roberto Cole. haddaba ciyaartan isla daqiiqadii ay bilaabatay ayay dhamaatay, taas oo dadka ka fajicisay. isla wareegii ugu horeeyay 37 ilbiriqsi gudahood ayuu ku burburiyay Tyson feeryahanka dhirirka iyo awoodda leh ee la tartamayay, isagoo la dhigay feer aad u awood badan oo gacanta bidix ah. waa Mike Tyson oo la tartamay Eddie Richardson. waana dagaalkii 12aad ee Mike Tyson, wuxuuna dhacay 13 November 1985, isla markaana ka dhacay magaalada Houston ee gobolka Texas. waxaa ka soo qayb galay daawadayaal aad u fara badan, kuwaas oo ku qanacsanaa ciyaarta, aadna u dhararayay inay daawadaan ciyaarta kaga barteen wiilka daada yar ee Mike Tyson, isla markaana filayay inuu Tyson kusoo gabagabeeyo ciyaarta wax ka yar 1 daqiiqo sidii looga bartayba. hagaag waa qaatay amarkii taageerayaasha oo wuxuu ku soo gabagabeeyay feerkii 1 daqiiqo iyo 17 ilbiriqsi oo ah wareegii ugu horeeyay ee ciyaar, kadib markii Mike feerkii lagu yaqaanay ee gacanta bidix la haleelay madaxa Eddie.
waa hagaag markaana waxaa tartamaya Mike Tyson iyo David Jaco waa tartankiisii 16aad kaasoo dhacay 11 January 1986 isla markaana ka dhacay Plaza Convention Center ee magaalada Albany ee gobolka New York. Markasta oo uu Tyson isku dayo inuu weerar cusub ku ekeeyo Jaco wuxuu ka horkeenaa feer kale oo caqabad ku noqda Tyson asagoo sida muuqataba rajeynaya inuu daaliyo Mike Tyson balse kadib weeraro badan oo uu Tyson rabay inuu ku hanto guusha wuxuu la haleelay feer culus madaxa Jaco taasoo keentay inuu Jaco wareer la fariisto Konaringa laakiin feerkaas Jaco kama qaadin awoodii uu mar kale kor ugu istaagi lahaa. Haddaba Tyson sidaad uga barateen dagaaladii hore si dhaqsi ayuu ugu degdegay si uu u dhammaystiro David Jaco waa intuusan tabareysan ka gaaray feerar wada socda ayuu sidii roobkii ugu harqiyay ka hor inta uusan la helin feer gacanta bidix ah oo aad u awood badan. Markaan David dhulka ayuu jiifaa halka Tyson laftiisa uu aad ugu daalay feerarka darandooriga oo uu isku daba xijinayo haddana ka yareynaya weerarada laakiin gaadaya hal feer oo sidii lagu yaqaanay bidixda ah si uu u soo gabagabeeyo tartanka. waa markii saddexaad oo uu dhulka dhigo marka refereega waa inuu ciyaarta dhameeyaa asagoo cuskanay xeerka saddexda mar oo dhulka lagu dhiga ah. haatan waxaa tartamaya Mike Tyson iyo William Hosea. haddaba kadib laba tartan oo uu la gaaray wareegga 10aad tartamayaasha kale ah James Tillis iyo Mitch Green, Tyson waa diiday inuu qirto in awoodiisii iyo firfircoonidiisii soo dhammaatay balse dhab ahaantii Hosea cabsi fara badan ayaa ka muuqata waana sababta keentay in si dhaqsi ah looga takhaluso. laakiin sida muuqata feerka Tyson wuxuu ahaa mid degdeg badan oo isdaba jooga. isla markii Tyson uu dareemay in Hosea jileec ka muuqdo ayuu wuxuu bilaabay in weeraradiisii lagu yaqaanay isdaba jooga ahaa isdaba dhigo isla mar ahaantaana feerar awood badan sidii roobkii ugu harqiyay taasoo keentay in Hosea uu ku dhaco dhulka. sida muuqata Hosea markaan wuxuu isdhahay Adriana City oo ha kicin ka hor tirada refereega ilaa ay gaarto 10 waayo wuxuu damacsanaa inuu ka nasto feerarka isdaba socda ee awoodda badan ee ka imaanaya Mike Tyson balse waqtigii ayaa ku dhammaaday oo refereegii waa joojiyay tartankii. waa hagaag markaana waxaa tartamaya Mike Tyson iyo Lawrence Boyd. tartanka wuxuu dhacay 11 July 1986 wuxuuna ka dhacay Swan Lake ee magaalada New York. tartankan waa mid ka mid ah tartamada isdaba jooga ah ee Mike Tyson uu tartamayay xilliga samarka ee 1986 isla markaana ka mid ah dadaalada ugu jira hanashada horyaalnimada feerka miisaanka culus. Boyd oo ah feeryahan iska dhexdhexaada ma ahan mid derbi adag u dhisi kara ama iska caabin kara feerka awoodda badan ee Mike Tyson uu sidii mashiinkii u tuurayo. sidaa darteed waxaa asna dhulka la dhigay wareegii labaad isagoo hoosta ka galaya ayuu Boyd isku dayay inuu ka duso difaaca Mike Tyson balse ma dhicin oo Mike qudhiisu wuxuu siiyey waqti yar oo uu ku raadinayo meel uu feer awood badan kaga dhifto. isla markiiba wuxuu xagga hoose kaga soo dusiyey feer awood badan laakiin waa la waayay. hase ahaatee Mike ma joojin oo wuxuu feer ka yimid gacantiisa midig kala helay dhanka bidix deetana wuxuu u soo dusiyey feer kale oo uu xagga hoose kaga keenay. haddaba Lawrence dhulka ayaa loo diray ilaa uu dhibsaday tirada refereega oo uu isdhahay yaa ka kor leexiyay qeyladiisa. waa tahay waxaan weli dhex maquuranaynaa tartanadii isdaba socday ee uu Mike Tyson ku xaqiijinayay horyaalnimada feerka miisaanka culus ee adduunka. markaana wuxuu la tartamayaa Mike feeryahanka la yiraahdo Marvis Frazier wuxuuna dhacay isla July 1986. Mike wuxuu la kulmay Frazier oo ah wiilkii uu dhalay feeryahankii caanka ahaa ee haystay horyaalnimada feerka miisaanka culus Joe Frazier. wiilka feeryahankii qabiilka ahaa ma aha mid sida aabihiis u awood badan oo xilligaas ahaa tababarihiisa iyo maamulihiisa. wuxuu Joe ku xisaabtamayay marka loo eego tartanka uu Marvis kaga soo horjeedo Tyson ma ahayn mid gebi ahaanba cad laakiin marka la daawanayo tartanka waxay u muuqatay Frazier-ka yar inuu jiray gaari taraag ah. bilowgii wareegii ugu horeeyay Mike wuxuu hareereeyay tartamaha ka soo horjeeday wuxuu ku dhiftay dhanka midig feer uu hoos kaga keenay sidii lagu yaqiinayba. haddaba Frazier waa argagaxay laakiin Tyson ma suginay wuxuu isdaba dhigay feerar lagu dawaqmo oo aad u awood badan isla markaana si darandoori ah u socday. Frazier dhulka ayuu miciin biday. waxaa xigay in refereegii uu tirinta bilaabay sababtoo ah tartamaha looma ogola inuu dhulka fadhiyo wax ka badan 10 sakan balse markuu arkay in Frazier uu miir daboolmay waa uu joojiyay
joojiyay ciyaartii. Haddaba Frazier wuxuu daqiiqado ka hor yimid isagoo miir qaba goobta tartanka, balse Tyson waxay ku qaadatay 30 sekan inuu ka takhaluso Frazier, halka tartankan feerka uu ka ahaa kii ugu gaabnaa oo uu tartamo Iron Mike Tyson isagoo waqti yar kusoo gabagabeeyay ciyaartii kuna guuleystay 30 sekan. weli tartamadii waa noo dhiman yihiin waxaa haatan nala tartamaya Mike Tyson Alfonso Ratcliffe. Tartankan uu la tartamayo Alfonso wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ka hor inta uusan kula tartamin Trevor Berbick horyaalnimada ama championnimada. Tyson si degdeg ah ayuu u weeraray la tartamihiisa isagoo soo bandhigaya farsamo qurux badan taasoo soo muujisay sanadihiisii ugu horreeyay ee feerka caalamiga ah. kadib daqiiqad uu maaweeliyay, Mike Tyson wuxuu ku waabiyay gacanta bidix kadibna u dabamariyay feer bidix ah oo aad u awood badan danka Alfonso. haddaba feerka Mike Tyson qofku haleelo dhulka ayaa laga raadiyay, wuxuu isla markiiba ku dhacay dhulka Alfonso asagoo cuskanaya jilibkiisa. wuxuu sugay inta referee ka gaarayo tirada 9aad kadibna kor ayuu u sara kacay asagoo markaan dhadhamiyay feerka bidix ee lagu yaqaanay ama lagu xamanayay Mike Tyson. haddaba sidii caadadiisu tahayba ma sugo in badan ruux uu dhulka dhigtay, isla markiiba wuxuu u soo degdegay si uu go'aan uga gaaro dhammaynta ciyaarta. kadibna wuxuu isdaba dhigay 8 feer oo awood iyo xawaare isku darsaday, balse Ratcliffe wuxuu ku nasanayaa qabsashada. kadib markii referee uu dhameeyay isqabsashada, wuxuu Tyson sii watay in uu ku garaaco Alfonso xariga agtiisa. halkaasna Tyson ayaa u soo gudbay tartanka horyaalnimada lagu qaadi doono suunka feerka miisaanka culus. waa hagaag haatan waxaa tartamaya Tyson iyo Pinklon Thomas. dagaalkan wuxuu dhacay 31 May 1987. waa tahay haddaba markaan Mike Tyson uu tartamayo wuxuu haystaa suumanka WBA iyo WBC, halka Thomas uu tartankan ku yimid rikoor fiican isagoo helay guusha 3 ciyaar oo isdaba joog ah. waxaa lagu fakeray waa ninka kaliya oo wajihi kara 20 jirka suumanka isku darsaday ee Mike Tyson. haddaba bilowgii ciyaarta sidaas ayay u muuqatay oo Thomas wuxuu maareeyay inuu soo koobo oo iska difaaco Iron Mike Tyson 5 wareeg. si kastaba ha ahaatee, wareegii 6aad muddo 3 daqiiqo ah Mike Tyson wuxuu ku harqiyay weeraro isdaba socda oo aad u awood badan, kuwaas oo uu inta badan kala haleelayay daamanka. Thomas wuu taranturooday kadibna saljugle ayuu ugu dhacay goobtii tartanka. isla markiiba tiradii referee ayaa ku bilaabatay, laakiin waqti uu ku kaco Mehelin oo referee waa dhameeyay ciyaarta. markuu Thomas soo miirsaday, waxaa lagu fakarayay inuu Thomas yahay ninka ka badin doona Mike Tyson, balse riyadaas waa soo dhamaatay. haatan waa laga hari waayay ilaa suumankii dib looga soo celiyo ama la helo qof ka guuleystay. haatana waxaa la tartamaya Tony Tubbs ninka la yiraahdo. tartankana wuxuu dhacay xilligii guga 1988. dagaalkan Mike Tyson wuxuu ku difaacayaa hoggaankiisa ciyaaryahanka adduunka ugu wanaagsan ciyaarta feerka culus. haddaba dagaalkan waqti badan ma qaadan sidii caanka ahaydba, isagoo Mike Tyson kusoo gabagabeeyay wareegii 2aad feer awood badan oo gacanta bidix ah. kadib feerkan aadka u awooda badan ee lala helay, Tony waa awoodi waayay xataa inuu sare joogsado ilaa dhexdhexaadii ciyaarta 10 sekandariyay. markaana Mike Tyson oo la tartamaya Franca Bruno xilliga tartankan dhacaya wuxuu la soo kulmay xilli ay dhibaato badan oo shakhsiyan ah haysato Iron Mike Tyson, isla markaana ay ku furneyd dacwad furiin oo xaaskiisa ah iyo sidoo kale dacwad kale oo xayeysiino shirkadeed ah. Tyson waqti badan ma haysan oo iskugu diyaariyo tartanka ku soo foosha leh, kaliya 2 sitimaan ayuu si buuxda u tababartay. haddaba miriradii ugu horreeyay ee tartanka, Mike Tyson wuxuu fuliyay weeraro wax ku ool ah kuwaasoo Bruno khatar geliyay, balse Bruno dhulka dhigtay. Bruno wuxuu awood u yeeshay inuu ka soo kabsado oo uu dagaalka sii wato, isagoo mararka qaarna soo bandhigaya ciyaar wanaagsan lana haleelaya feerar Mike Tyson. si kastaba ha ahaatee, waxay soo gabagabowday gebi ahaan ciyaartaba kadib markii wareegii 5aad uu Mike Tyson la haleelay feerarkiisii awoodda badnaa isdaba joogga ah, kuwaasoo Bruno ku tuuray xargaha goobta dagaalka, halkaasoo uu Mike
ku bilaabay inuu si aan joogsi lahayn u garaaco Bruno, balse Tyson wuxuu istaajiyay kadib markii uu mid ka mid ah tababarayaasha Bruno kusoo tuuray shukumaankii uu uga tirtirayay dhididka Bruno. agaag waxaan ku dhownahay gabagabadii haatana Mike Tyson waxaa la tartamay Henry Tillman ninka la yiraahdo. waxay ahayd June 1988 markii uu la tartamay dagaalyahanka culus ee Henry kaasoo 1984 u matalay ciyaaraha Olimbikada dalka Mareykanka. qofna shaki kama gelin guusha Mike Tyson. si kastaba ha ahaatee xaqiiqada waxay ahayd in Tillman uu aad uga argagaxsanaa Mike Tyson isla markaan wareegii koowaadba markuu bilowday waxaa isdhimay sawaxankii dadweynaha markuu hal feer oo cajiib ah kala haleelay madaxa, halkaasoo uu Tillman dhulka saljugle ugu dhacay. hadda waa xilligii ay tartami lahaayeen Mike Tyson iyo Donovan Ruddock. kani wuxuu ahaa tartan aad u xiiso badan oo muuqda. Ruddock waa ciyaaryahan Canadian ah, dabcan waa ka cabsi qabay Mike Tyson balse ma gaarsiisnayn inuu durbaba tiiro dhigo sida Henry Tillman ama Alex Stewart. waxay u badan tahay in Donovan uu yahay feeryahan ku dagaalama gacanta bidix sida Tyson, taasoo ka dhigaysa tartanka ciyaaryahan gacanta bidix ku dagaalama oo la tartamaya Tyson oo asna gacanta bidix awoodiisu ku jirto. haatan waxaa la iska wada ilaalinaya gacanta bidix oo uu ciyaaryahan walba ka rido feerka. dagaalkii waa sii qaraaraaday, haddaba waxaa feer aad u xoog badan oo gacanta bidixa lala haleelay Donovan kaas oo dhulka soo taabsiiyey. wareegii toddobaad Mike Tyson wuxuu la haleelay daanka Donovan feer aad u culus. Donovan waa wareeray wuxuuna cuskaday xariga, isla markiiba Mike Tyson wuxuu u degdegay si uu hawshan isku raaciyo, deetana si isxiga ayuu iskugu badbedelay labada gacmood ilaa rifiriga soo dhexgalay kadibna dhameeyay ciyaarta oo ku xukumay sharciga TKO ama technical knockout. dambeyntiina wuxuu la kulmay Mike Tyson Buster Matz Jr. ninka la yiraahdo. tartankana wuxuu dhacay 16 December 1995. Matz aad ayuu isku difaacayay isagoo ka fogaanayay weerarada Mike Tyson, hase ahaatee difaacaas ma sii waarin. wareegii saddexaad Mike Tyson wuxuu Matz u diray dhulka isagoo feer xagga hoose uu kaga keenay la helay. si kastaba ha ahaatee Matz ma awoodin inuu tiradii rifiriga ka soo gaaro oo uu soo sare joogsado si uu u sii wato dagaalka. meeshaasna waxay guushu ku raacday Mike Tyson. waxaa halkaas ku noqday horyaalka miisaanka culus Mike Tyson. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto qisooyinka dambe ee aan idiin soo dayn doono. waa mahadsantihiin.